بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قريوات سلام الباجوكتان كسور دوادا جنال كينا كرن إيو قرحين فضلا هدي أنو عسبتين سبسكرايب هدي أنو الجوب جرتين ما شاء الله لايكتي كومنتيك أصحابي سور دوادا وانتو حسمي سنينا وحير أو إنو فائدة إنو له oon dabiici ah oo jikadeenana aan ka heli karno insha Allah. waa saddexdan shay waa caano, waa baradho yar iyo in yar oo huruud ah. marka hore waxaan soo qaadanayaa baradhada, kadib waxaan ka saarayaa dubka. baradhada maasha Allah aad ayay u fiican tahay, intii taqaana intii aqoonin hadda ayaa loo sheegayaa. baradhada waxay u fiican tahay, biyaha baradhada waxay u fiican yihiin ay nadiifiyaan wajiga, mana sababaan cuncunna ma kuu keenayaan. baradhada markii aad wajiga marsato, wajiga nadiif ayuu kaaga dhigayaa, dhalaal ayuu kaaga dhigayaa maasha Allah, mana kuu sababayo inuu kuu keeno cuncunka. marka dadka waxay saacideynaysaa yacni xasaasiyadda qabaan ama wajiga sensitive-ka cuncunka ee waxyaalo walba diidayo. marka ka faa'iidaysta insha Allah. wax allergy ma laha, si dabiici ah ayay wajiga u cadaynaysaa. waxay kaloo nadiifisaa haaraha, nabraha. caanaha asigana wuxuu nadiifiyaa, ayaa loo isticmaalaa wajiga, ayay bakteeriyada ka dilaan. si fiican ayay bakteeriyada uga dilayaan wajiga maasha Allah. asigana qurux ayuu kaaga dhigayaa. huruudda kuu soo hirtay, huruudda ayadana kadaalika maasha Allah waxay ku siinaysaa midabka jaalaha ah. markii aad wajiga marsato midabka yelowga ayay ku siinaysaa. dadka qaar ayaa xasaasiyo ku qabo, qofkii xasaasiyo ku qabo iska dhaafi karaa, qofkii aan xasaasiyo ku qabina wuu wadanayaa insha Allah. midabka jaalaha ayay siinaysaa. marka midabka jaalaha ay siiso, dadka qaar nabraha maasha Allah aad ayay uga dishaa nabraha. marka maasha Allah yaan la moogaanin alaabtan hala isku ogaado. hadda sida ujeedaan waxaan hoolanaynaa baradhadii ayaan hoolanayaa. baradhada waxaan ka rabaa juuska baradhada oo keliya ayaan rabaa, uma baahni baradhada qashinkeeda iyo uma baahni. mar kale ayaan idin tusi doonaa iyadan markii aan juus ka baxsado sida aan u samaysto, iyadoo scrub aan ka samaysanayo insha Allah. marka insha Allah yaan la moogaanin alaabtan hala isku ogaado biidnillaahi alkariim. sina uga faa'iide ayaa uga faa'iidi doontaan, dad badan ay uga faa'iideen. sida ku hor looga soo duceeyay ayaa kan uga soo duceyn doontaan biidnillaahi alkariim. qofba wax ayaa u shaqeeyo, mar walbana waa sheegaa, qofba wax ayaa u shaqeynayo. kan aniga ii shaqey adiga ma kuu shaqeynayo, kii adiga ii shaqey aniga ma ii shaqeynayo. marka waxaa waaye dad badanoo waxaa jiraan negative oo dhahayaan waxaa maxay tarayaan dadkan been inoo sheegaysaa, maalin walba cunto lee lagu dheelaya. wax dheel ah ma jiraan. yacni waxaan u sameynayna waxaa waaye sida kiimikadii, yacni waxyaalihii iscadaynta uga maarano. wixii markaa iscadayso wiig gudihiis ayaa wax ku noqonaysaa subxaanallah, dayax camal. haddana maxaa ka dambeeyo inuu wejigaada bahdilmaayo. yacni waxa kuu fiican adigoo midabkaada haysto oo un yacni ilaashada dhalaalkiisa oo keliya, yacni wax dabiiciya oo kuu noqonayo, wax qurux badan aa noqonaysid. yacni wejiga markaa waxyaalahaas mar haddana gabow waa imaanayo degdeg ah, waxa imaanayo guduud, waxa imaanayo hur, waxa imaanayo cuncun, xanuuno fara badan. ma fahamtin? marka waxyaalahan wax dabiici waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala na siiyo, cunina karno, iskuna qurxin karno. marka cunno jirkeen oo noogu naaxo, fitamiino aan ka helno, nafaqooyin fara badan aan ka helno, sidaas la mid ah ayaa wajigeena wuxuu uga helayaa nafaqo iyo fitamiino fara badan insha Allah. hadda waa ujeedaan baradhadii ayaan waxaan ka baxsanayaa juuskeedii yaraa. dhacaanka baradhada ayaan baxsaday, sida aragtaan si fiican ayaan uga dhameynayaa. marka hadda maanta intaa u baahanahay oo keliya waxaa waaye juuska oo baradhada juuskeeda ayaa u baahanaya, uma baahni inteeda qashinka insha Allah. inteeda qashinka mar kale ayaan soo suubin doonaa anigoo ka suubsanayo scrub. marka maasha Allah hadda markii aan juuskii soo bagtay oo baradhada ahayd waa ujeedaan. marka waxaan ku darsanayaa maasha Allah siduu juuska horta u qurux badan yahay idin tuso. maasha Allah keligiis ayaa marsan kartaa, xitaa keligiis ayaa marsan kartaa. suuf ayaa qaadanaysaa, wejigaada ayaa marmarsanaysaa, gacmahaada, qoortaada, hadba meeshii aad rabto intii haar meel kaaga taalo maasha Allah wuu kaa dhaqayaa. yaa wax la hubo, waana wax la soo tijaabiyay maasha Allah. caalamka dhan ayaa laga isticmaalaa, adduunka dhan ayaa laga isticmaalaa.
hadda adduunka waaba laga tagay waxyaalo la isku cadeey waxaan oo kaliya ayaa la marsaa sababtoo ah wuxuu ku siinayaa dhalaal midabkaadina ma kaa guuraayo oo midabkaada ayaa haysanaysaa haddana waxa ku darsay sida ujeedadu waa hal qaado oo caano ah caanaha isticmaalo waa caano dhaay ah weliba waa caano aan soo qasay oo caano booro ah midka xoolaha mid allaale midka haystaa ku darsan kartaa in yar oo huruud ah huruudda haddii aan ribin waa iska dhaaf kartaa huruudda waxaan ugu darsanay aniga waa jeclahay markii aan marsado midabka oo jaallaha oo kaleeta ayay ku siinaysaa qurux ayay ka dhigaysaa way ku dhalaalinaysaa maasha allah nabraha way baabi'isaa dadka qaar way jiraan allergy ku ah oo xasaasiyo ku qabaan marka aniga laakiin xasaasiyo kuma qabo aad ayaan u jeclahay insha allah waxyaalo fara badan ayaan soo geliyaa oo isqurxinta ah hadda midkii kuu shaqeeya ayaa isticmaalay sida aan idiin sheegay marka waa kaa sidaas ay u qurux badnaatay biyaha baradhada marka hore sida idinku sheegay waxay nadiifiyaan wajiga ama jirka meeshii aan mariso ayaa nadiif kaaga dhigayaan hadda waxaan soo qaatay suuf sidaas ayaa wajigaada uma marsanaysaa ama gacmahaada ama korkaada isla markii ayaa dareemaysaa insha allah hadda waa arkaysaan gacanteeda markii aan marinayo iyo marka hore farqiga u dhaxeeyo yaa inta aan maray bal arag insha allah marka wajigii ama jirkii ayay nadiifinaysaa intaas iyo hadalkii inoo maraya wajigii ama jirkii markay inoo nadiifiso maasha allah waxay kusii fiican tahay haddana baradhada oo lagu ammaanay wax cuncun ah ama xasaasiyad ah ma lahan ama maba sababto oo ma keento oo qofkii nooc kastoo jirkiisii ama u keento ayaa la dhahay marka maasha allah si dabiici ah ayayna wajiga u cadaynaya ama korkii meesha aan mariso qoortaadii gacmahaadii lugahaadii ayay si dabiici ah kuugu cadaynaysaa weyga waxaa marsan kartaa 2 maalin 3 maalin ayaa loo isticmaali karaa si dabiici ah markay kuugu cadayso kadibna waxay kaa nadiifinaysaa lugeere haarahaasoo ahmed madowga daamanka kaa galay meel kasto yacni haaraha nabraha ay kugu reebeen ayay kaa nadiifinaysaa waxay goynaysaa lugeere nabrihii wejigaada ku yiilay way kaa jaraysaa oo way jaree ama markaa dhowr biri aan marsato maalinka dambeeye waa si nabrihii iyagoo baaba'ay oo qalalay ayaa arkaysaa taasna aniga ayaa ku arkay nabro ayaan lahaan jiray kadib markaan geeda isticmaalay maasha allah in badan yani horta fasti maalinka ugu horeyso oo isticmaashid yani subaxii aad soo kacda ayaa hore ka arkaysaa maasha allah alaabtaana waxaa la marsanayo xilliga la marsanayo waa xilliga habeenkii oo aad sii seexanayso haddii aad rabto maalintii waa marsan kartaa maasha allah kusoo dhawaada janalkeena asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala